xafladda qalinjabinta dufcaddii labaad ee ka aflaxday markiska qur-aanka kariimka ee Khaalida Xuseen ee magaalada Boorama ayaa maanta ka dhacday markiska Bayt Macmuur waxaana munaasabadani ka qalinjabinayay arday ay tiradoodu dhan tahay 36 arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo dhamaystay barashada culuumta diinta islaamka iyo xifdiga qur-aanka kariimka waxaana munaasabadani ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ugu horeeyo isuduwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka Awdal maamulka markiska Khaalida Xuseen macallimiin marti sharaf iyo waalidada kala duwan ugu horeyntii waxa halkaasi warbixin dheer ka warbixiyay maamulaha markiska Khaalida Xuseen Sheekh Xaashi Cabdullaahi Jaamac oo ka waramay maraaxilkii kala duwan ee uu markisku soo maray isagoo ugu dambeyntiina uu hambaliyay ardayda qalin jabinaysay warbixin yar oo kooban hadii aan markiska ka bixiyo markiska waxa la aasaasay bishii toddobaad 18-keygii 2015 ayaa la aasaasay markasku waxa uu ka kooban yahay xagga waxbarashada haddaynu warbixin yaroo kooban ka bixiyo 4 qaybood qaybta koobaad waa ardayga amba ardayda waxbarashada looga bilaabo farqabashada la yiraahdo oo farta loo soo qabto muddo kolkii loo soo wado inta uu ka yar dalaco oo farti uu la qabsado isagu wax feegaran karo waxa loogu xijisiyaa asmaayada oo magac la xafisiyo hingaada oo loo sii biiriyo markii waxa weeyaan dabadeetana uu sabuurada wax ka qoran karo wixii lagu qori karo uu ku qoran karo iyo waxa loo bilaabaa kitaabka qiraa'ada التبيان في القراءة والكتابة جزء كوبات أي الله بلابا وأنهم بليين يا مكة أرديدة قلن جبيسي قيبت القرآن قلن جبيسي أو مكة أفرويل هي أفر قبضات مكة أفرويل هي قبضة هي قيبت القراءة أو كوبي صدنا ويل هي قبضة سكوجرة oo difacadii labaada kulli waxa habsaamiyay difcadani sanadkii hore inay qalin jabayaan bay ahayd waxa habsaamiyay karoonihii dhacay ayaa habsaamiyay oo dib u dhigay marka ilaahay baan ugu mahadinaynaa marka inoo suurta galiyay dadaalka ballaaran waxaana marka bacda Ilaahi ilaahay kadib marka laga yimaado macallimiinta iyo maamulka waxa dadaalka ayaguna qaybtooda magac ku leh waalidiinta oo si fiican noola shaqeeya noo barbar taagan sidaas oo kale markaska waxa la u suurta galiyay sanadkan aynu ku jirno inuu xarun rasmi ah yeesho taas waxa weeyaan marka khayr Allah ka siiye uu gacan weyn ka geystay waxa weeyaan gudoomiyaha jamciyadda Giif Sadaqa Sheekh Muqtaar Xaaji Xuseen Miigane oo muddo dheer waxa weeyaan dadaal u galay iyo waalidiinta waxa weeyaan markaska qaybo kamid oo iyaguna dadaal badan nala galay ilaahay wuxuu suurta galiyay in sanadkan aynu ku jirno bishii waxa weeyaan lixaad in markaskii la furo oo uu ku soo wareego ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in dadaalka markaska iyo ardayda iyo waalidiintuba uu sii lebilaamo wixii intaasi ka dambeeyay waxa hadalka iska daba qaatay waalido macallimiin ardayda ka aflaxday markiska Khaalida Xuseen iyagoo qaarkood ay halkaasi ku soo bandhigeen culuumtii kala duwan ee ay ka barteen markiskaasi وثاني قام بغير قنة في اللام والراء ثم كررنا والثالث الإغراب عند الباء ميما بقنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف الواجب للفاضل في 5 من بعد 10 امسحها. وكيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف أصبحت؟ أصبح من كل ليلة. وفي أي حي تسكن؟ حي قرقاب. وفي أي مركز تدرس؟ مركز الخالد حسين.
tawjiidka qaybinta qur'aanka ugu soo hagaysa maraakiisul khaalidul xusayna istaadiyo macallimiin inoo heegan yihiin barista qur'aanka qismul baniid waa qismul banaat الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله وبركاته وحقيقة فرحت إن كسر قيب قالوا حفلة لو سمي عندنا كتاب كلا حفظي يقوى كلام مستويات كلام يعني كجرة وحن مرة بعد ما هنقيا شيخ حاشي iyo nimanka macallimiinta oo u dhabar adeegay muddo aad u dheer iyagoo aan ku jiray guri kira ah muddo dheer oo ilaa 7 sano ah madrasadani waa madrasadii sagaalaad ee ay samayso jumciyadda icdaa sadaqa waxaan nimga la hadlayaa guud ahaanba waan la hadlayaa waxaan la sii hadlayaana ardayda ka qalin jabisay ee kitaabka quraan kariimka dhamaysay waa inaad ku amal fashaan kitaabka ilaahay ee la idin baray ee idigu soo dadaaleen macallimiintoonu ana cilmigana raadkiisu waa cibaado waa inaad cibaadaystaan culimaa noqotaan hada laakiin maanta xafladan quruxda badan inta la idin qabto oo aqalin jabisaan aad bari toole aad sidii kuwa kale ee meelaha iska jooga aad iska dhex raacdaan dadka taasi waxaad noqonaysaa in dadaalkii waalidkiina iyo kii maaragtay macallimiintiinaba aad bardarayseen marka iyaga waxaan kula dardaarmayaa inay quraanka ilaahay ay gacanta midig ku hayaan anay sii joogteeyaan xifdintiisa iyo barashadiisaba marka ilaahay horta ha idigu anfacay waxaan idin leeyahay noqda kuwa diinta ku dhaqma yaani ku dhaqankana wax keenaya in horta markaad shayga jeceshaad ku dhaqmi kartaa qalbigiina waa inuu jacayl diineed galaa ilaahayna ha idigu anfaco waxaad barateen ilaahayna islaamnimada hayna wada ogoleysiiyo inta arday haddaan ku dhaafo in yar hal kalimaan odhanaya culimada ilaahay ka jisaysiyo waxay dadkan soo bareen oo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inta ka bacdi maanta shucuurtayda ma soo koobi karo bariya bulsho badan baan ka soo qayb galay oo markiskani leeyahay waxaana maxaan ku dhaday aanu u soconay maanta oo kale waxa weeyaan waxaan xasuustay maanta maansa uu tiriyay maxaa la yiraahdaa xasan dhuxul saalax oo ahayd halka damaca qeyrka yahay dunidan dhan maare adna ma hadibu guur oo hankaaga duuduub darajada wax ka xiga oo dadaal hayn sheeg maantaan taaganahay halkii waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo gacan ka geystay anigoon hebel odhanayn oo ilaahay agtiisa ay u taalo wixii uu geystay ayaan uga mahad celinayaa oo leeyahay intii dhimatayna naxariiso janno Allah siiyo inta noola ubadka iyo ooriyada iyo caafimaadka iyo cibaadada Allah idin geliya waan leeyahay marka hadalka anigoon dheereynaynin waxaan idigu dardaarmayaa sida aad u qurux badan tihiin Allah horta ha idigu wado waalidkiinana ka farxiya farxada maanta waa inay markaasi adduunyada farxada waa inaad ku jirto oo xaflada iyo quruxdaasi ay mar walba inaga muuqato ee aynay noqonin kuwa maalin ku eegaysiya sharaftii iyo karaamadii quraanku lahaa kuwa maalin qura ku eegaysiya waa inaynayna noqonin ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu ina sugo hambalyeynta aanu hambalyeynayo ardayda quraanka dhameysatay oo leeyahay jazaaka Allahu khayran jazaa ilaahay niga abaal mariyo waxaad qaadeen mas'uuliyad kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala takaliyan u joognaa adduunyadu waxa weeyaan inaan barano kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala ardayda quraanka dhameysatay mid baan leeyahay waalidkana mid baan leeyahay macallimiintana mid baan leeyahay jumciyadda soo dhistayna waan u hambalyeynayaa ardayda quraanka dhameysatay waxaan leeyahay quraankii maanta maynu dhameeyne maanta baad u jilba fadhiisateen waxa la niiga baahan yahay quraankii inaad xifdidaan oo ku dhaqantaan oo bartaad maanta dhigtaan inuu ku deeynin walaalayaal waxa lagu faano oo lagu meel maro waxa kamid ah kitaabka quraanka kariimka oo inaan qiimeeyno weeyaan
ardayda qalinjebisay waxaan leeyahay walaalayaal ku dadaala inay qayrkiin aad kor u qaadaan kitaabka qur-aanka kariimka marka hore waa inaan diinta islaamka ka horreysiino wax kasta oo adduunka waxbarasho unbaa lagu faanaa laakiin waxaa fiican inaan qur-aanka kariimka aan ku faano weeyaan musaa ugu baryaa ehlu khayr buu ciidu xaafidku ciidu ma qunto walaalayaal kaa ayaad maanta xambaarteen cisigaasad xambaarteen waxaa laynooga baahayay inaan ku camal fallo waxaa laynooga baahayahay inaan ku dadaalo waxaa laynooga macallimiinteennu tahay noo dhigeen iyo waxay noo xafideen iyo waxay noo tilmaameen in aan ku dhaqanno ayaa laynooga baahan yahay sidaasi ayaad maanta ku qurux badan tihiin macallimiinta markiiska soo diyaargareeyeyna maasha allah waanu mahadnaqanaa ka wasaaradaha waa maca jira waa uma jirta insha allah halkaa ka sii wada ilaahayna waxaan baryaynaa subxaanahu watacaala intiina iyo inka badani in ay ka soo baxaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay xifdiga qur-aanka kariimka barashada culumta diinta islaamka ee markiska khaalida xuseen ee magaalada boorama ka aflaxday axmed derya ciltire wararka awdal media group magaalada boorama.